Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Samsam. Waxaan ku suganahay dalka Uganda, caasimadiisa Kampala. Fadlan waxaan kaa codsanayaa si sharaf leh inaad subscribe ii saartid, sidoo kaleeta like ii saartid. Ra'yi haddaa qabtidna comment iigu soo qor. Waa mahadsantihiin dhammaantiin. Sidoo kaleeta maanta waxaa jeclaystay inaan idinla wadaago vlog. Waxaan u socdaa meesha lagu ordo. Waxaan jeclaystay inaan si qurux badan idinkugu soo gudbiyo daawasho wacan. Haatan waxaa soo gaarnay goobtii loogu talagalay markaas in lagu ordo. Sidoo kaleeto dadyo fara badan ayaa iskugu imaada gelinka hore ee subaxdii, sidoo kaleeto iyo gelinka dambe. Inta fiidiyogan ku guda jirno waxaa arki doonaa dadyo fara badan oo ordayo sida qofkan oo kale. Sidoo kale goobtan waa goob caan ah ee garanayaan dhammaan dadyowga ku sugan Kampala. Sidoo kale dhalinta saa u jeedaan waxay sameynayaan dhoolatus ba'an. Waa dhalinta wadanka u dhashay ee madowga ah, halka dhalinta Soomaaliyeed ee orod nafta iskaga qaadeen. Sida muuqaalka ka arki kartaan waa laba hooyo Soomaaliyeed oo meeshaan u imaadeen inay markaas ayagana dhidid iska keenaan ee buurtaan intay koraan ee haddana ka degaan ee markaas hadaf iyo juhdi kusoo bixiye sifa markaas ay caafimaad u helaan. Qof walbana waxaa kula talin lahaa meeshaan inuu imaado oo caafimaadkiisa jecel. Sidoo kale hospitaal meeshaan ku yaalo. Mararka qaar oo waxaa jirto meesha ay cidlo tahay sida maanta oo kaleeto, maadaama maalin fasax ay tahay dadka badanaa ma imaadaan. Maalmaha ay fasax leeyihiin ayay badankooda imaadaan. Anigana maanta waxaan u imaaday inaan idinla share gareeyo maadaama ay firaaqo tahay oo sujaam badan meesha ka jirin. Waxaan jeclaystay inaan idinla share gareeyo. Haatan xaafadda u sii daadegeenaa sida u jeedaan maadaama waqtigeena uu noo soo dhamaaday oo qorraxdana sii dhaceyso oo markaas meeshana aad iyo aad u tuuga badan tahay. Sidoo kaleeto view-ga magaaladana sidaas ayuu eegyahay galabta. Masha Allah waa iska simple walaahi. Ilaah noo ziyaadiyo. Haatan xaafadda imaaday. Waxaan rajeynayaa inaa fiidiyow ku qanacdeen. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.